السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal, kusoo dhawaada muuqaal kale oo cusub oo degdeg ah oo ku saabsan shirkadda Fidelcrest. muuqaal hore ayaynu kasoo duubnay oo shirkadda aynu ku faahfaahinay oo noqotay shirkaddii inoo bedeli lahayd Forex Fund iyo dhammaan brofiimada kale. markaa fursad baan iminka idin wadaa shirkaddu inay keentay fursad. markaa fursaddan dhowrkii bilood mar baa la helaa. waxa weeye hal akoon haddaad iibsatid hal akoon la mid ah free ayaad helaysaa. dad akoon 250 heshid iibsatid dadka 250 helaysaa waa challenge. marka labada akoon baad ku tareen gareyn kartaa kii aad baastid ama labadaba haddii aad baastid falilahi alxamdu waad ku shaqaysanaysaa, lacagta kasoo baxdana si horan baad faa'iido kala qaadanaysaa. marka fursad aad u muhiim ah waxay socon doontaa hal maalin iyo 13 saacadood. marka maanta habeen dambe way ku eegaanaysaa insha Allah. marka iska ilaaliya koodkan baa la isticmaalayaa. telegramkeena haddaan aado telegramkeena aan soo dhignay waa tan waad aragtaan inaan durtaba la wadaagnay dhalinyarada. marka waxaad samayn doontaan insha Allah koodkaasaa qaadan doontaan, koodkaas ayaa isticmaali doontaan. marka waxaad qaadanaysaan linkigeenan habka la isaga diiwaan gelinayaa hore ayaan youtube-keena usoo dhignay. linkigeena marka click siisid akoon ka dooratid meesha promo code ay ku qoran tahay baad koodkan gelin doontaa. meeshii marka hore koodka qiimaynta gelinay weeyaan. fursad labaad ayaynu ka helay marka hore qiimaynta 15% dhalinyaro badan ba ka faa'iidaystay oo koonada ugu tiragalaya. sidoo kale waxay tusayaa wiil Soomaaliyeed oo gabiisaba 12 maalin kaliya kaga sameeyay lacag fiican shirkaddan oo kala baxay. marka uu nala wadaagay faahfaahintii iyo cadaymihii oo tan telegramkeena ayaan ku baahinaa Somfest. marka waad arki kartaan iyadoo shirkaddu soo dirtay oo leedahay waxaad qaadatay waxaan kuu soo buy out garaynay 12,580 508.8. marka haddii aad soo marka soo gaarina waa kan marka depositkii wuxuu soo dhacay Binance 12,000 ayuu 12 maalmood oo kaliya uu ka shaqeeyay wiilkaas. marka ka faa'iideysta lacag fiican baa shirkadda laga sameeyaa. waa fursad aad u wanaagsan oo dadka dhan ay tahay inay ka faa'iideystaan. muuqaalkanna si fiican usoo daawada oo kii faahfaahinayay 20 daqiiqo soconayay shirkadda faahfaahin guud inaga siinayay. marka waxaan kula talin lahaa insha Allah ina dhammaantiin fursaddan ka faa'iideysan doontaan. koodkaas la gelinayaa laba akoon baad helaysaa, saaxiibka waad siinaysaa ama labadaba adiga ku tareen gareyn kara. waxaad sameeysaan hadda laba qof baa isku darsan kara oo halkee marka hore hal fee ka bixin lahaa qofkaas ay mid walba lacag yar gaar ah dadna hal fee ka wada dhiganayaan hal akoon bay iibsanayaan laba akoon buu kala noqonaya. marka qof walba akoonkiisa mu qaadanaya khalaas. ka fursadda ka faa'iideysta walaalayaal aad baa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.